dabcan dhammaanteen waynu jecelnahay in ay dadku na jeclaadaan. haddaba sideed ku noqon kartaa qof dadku ay jecel yihiin, qof dadku ay aad u ixtiraamaan, qof ay soo dhaweeyaan dadka oo dhan? haddaba haddii aad doonayso inaad dadka qalbiyadooda kasbatid, marka ugu horeyso waa inaad ixtiraamtaa dadka, ha noqoto qof weyn iyo qof yar. waa inaad dhammaan dadka oo idil aad ixtiraamtaa, waa inaad qadarisaa, waa inaad soo dhaweysaa marka ay ku yimaadaan, waa inaad si fiican ula dhaqantaa, waa inaad ixtiraam aad weyn aad u muujisaa. dadku way ku jeclaanayaan. horta marka ugu horeyso ma sahlana in dadku aad si fudud ku soo jiidato, balse hawl dheer iyo dadaal iyo dhaqan fiican haddaad la imaado, boqolkiiba boqol waxaan hubaa inaad noqon doonto qof dadku ay jecel yihiin. dadku in la qadariyo way jecel yihiin, in la ixtiraamo, in la dhageysto, in si fiican loola dhaqmo way jecel yihiin. haddii aad tahay qof wanaagsan, dadkana aad si fiican ula dhaqanto, dabcan dadku way ku jeclaanayaan. waxaadna noqonaysaa qof dhammaan dadkoo idil ay jecel yihiin, si fiicanna loo soo dhaweeyo loona ixtiraamo. haddaba waa inaad wanaajisaa dadka aagaaraha ku nool iyo kuwa kula dhashay iyo kuwa dariskaaga ah. iyo haddii aad tahay qof shacab oo caan ah, waa inaad wanaajisaa taageerayaashaada iyo shacabkaaga. warkaygu ugu dambeeya wuxuu yahay dadku qadari ixtiraam.